kulan wacan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin diyaarinay waxaana ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya oo jawaab adag ka bixisay hadalkii ka soo yeeray Siciid Dani wararkii ugu dambeeyay shirka maanta Muqdisho uga furmay madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka beesha caalamka door intee la eg ay ku leeyihiin shirkan Faadi Yaasin iyo Farmaajo oo wada qorshii lagu dilay lahaa qaar ka mid ah midowga musharaxiinta qodobadaasi kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaa wararka Warsida TV fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay soo booqatay saar subscribe la wadaag asxaabtaada oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo macluumaadkan halkan soo gelino وهاجاك داوديال markaan si toos ah ayaan u gudagaleynaa faafahinta qodobadii hordhaca warka aad ku daawateen aan ku bilowno waxa maanta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka shir uga furmay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya shirkan ayaa waxa looga arinsanayaa arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana uu ka dugan yahay shirarkii hore taas oo ku aadan in dhammaan saamileyda siyaasadeed ay shirkan ka qayb gali doonaan waxaana lagu casuumay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale maalintii biri waxa ka qayb gali doona shirka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda ururada bulshada rayidka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana intiisa badan diiradda lagu saari doonaa heshiiskii 17 Sebtembar iyo caqabadaha ku horgudban doorashooyinka dalka shirka ayaa sidoo kale la filayaa in lagu dhameystiro heshiiskii 17 Sebtembar iyo heshiiskii ay gaareen guddigii farsamo ee ku shiray magaalada Baydhabo 15 bisha ilaa 16 bishii tagtay ee February waxaa jira ajendayaal iskhilaafsan oo ka soo baxaya shirka iyadoo aan la ogeyn ka soo qaybgalka Axmed Madoobe iyo Siciid Dani oo dooda ugu weyn ay ka qaadan doonaan shirka Farmaajo iyo kooxdiisa waxa ay doonayaan in ajendaha lagu koobo wixii ka soo baxay guddiga farsamada ee Baydhabo iyo qodobkii saddexaad ee ahaa kii lagu kala kacay magaalada Dhuusamareeb ee ahaa wax ka beddelka guddiga doorashooyinka Gado iyo Somaliland maamulada Puntland iyo Jubbaland oo taageero xoogan ka helaya madasha musharaxiinta ayaa wata dhowr qodob oo kala ah kow amniga doorashada cidda sugaysa labo in isbeddel lagu sameeyo booliska Soomaaliyeed saddex in shaqada laga joojiyo taliyayaal ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday mucaaradka 19 February afar in Farmaajo uu saxiixo warqad ku laalayo awoodiisa iyo shan in xukuumadda ay sii wado arrimaha doorashooyinka iyo lix guddi qaran oo muddada kala guurka maamula dalka oo xukuumadda iyo guddoonka iyo baarlamaanka ku matali doonaan arrimaha kale ee dawladda shirkan ayaa ah mid aad xasaasi u ah waxaana garwadeyn ka ah beesha caalamka waxaana ka qayb galaya madaxda waqtigoodu dhamaaday ee dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedyada iyo madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta ugu cadcad ee mucaaradka ammaanka goobta uu shirka ka dhacay ayaa aad loo adkeeyay waxaana goobta ka dhacay shirka ku gaaf wareegan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM beesha caalamka oo garwadeyn ka ah shirka waxay shaacisay in madaxda Soomaaliyeed aan laga aqbali doonin kala tag iyo sidoo kale in aan heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu amray madaxda maamul goboleedyada in aysan ka bixi karin magaalada Muqdisho hadda dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan doorasho Siciid Dani Axmed Madoobe Qoorqoor Cali Guudlaabi iyo Laftagareen waa in Muqdisho ay joogaan ilaa heshiis laga gaaro guuldaradu ma ahan wado furan ayaa lagu yiri war ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya gaar ahaan boggeeda Twitter-ka oo lagu daabacay qoraalkaasi si kastaba ha ahaatee lama oga waxa ka soo bixi kara shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho isla markaana lagu wado 23 bisha oo ku beegan maalinta Talaadada oo biri in uu soo gabagaboobo dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta Ismaan Abuukar Dube oo la hadlay warbaahinta ayaa ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdillaahi Dani ee ahaa in ciidamo la duldhigay kuwaas oo ku tilmaamay in ay gudaha u galeen garoonka Aadan Cadde wasiir Dube ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin ciidamo la geeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho isla markaana wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah Dube ayaa sidoo kale xusay in madaxweyne Dani si qaldan wax loogu sheegay maadaama isagu uusan banaanka u soo bixi karin sida uu hadalka u dhigay Ismaan Abuukar Dube wasiirka wasaaradda warfaafinta oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay inuu xiriir la sameeyay taliyayaasha ciidamada isla markaana ay u xaqiijiyeen in aan ciidamo la geyn garoonka sidoo kale waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay isdejiyaan kuna kalsoonaadaan dawladooda iyo wada hadallada socda ee xal loogu raadinayo arrimaha doorashooyinka ugu dambeyn waxa uu digniin u diray wasiir Dube
dad uu sheegay in ay leeyihiin dana gaara islamarkaana ay iska horkeenaan ciidamada iyo madaxda Soomaaliyeed. Hadalkan ayaa ku soo aadaya kadib markii waraysi uu Siciid Deni siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da kaas oo uu ku sheegay in lagu soo weeraray xerada Xalane islamarkaana la soo geliyay ciidamo badan oo taabacsan madaxweynaha uu waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Markan xog muhiim ah oo aan helnay ayaa sheegaysa in taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo kaashanaya xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ay qorsheynayaan weeraro lagu qaadayo qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka, gaar ahaan xubnaha ugu miisaanka culus ee midowga musharaxiinta madaxweynaha dalka. Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya loo diyaariyay in ay weeraro gaadma ah ku qaadaan guryaha ay Muqdisho ka degan yihiin musharaxiinta qaar oo aan helin magacyadooda, balse xogtooda weerarka ay qaadayaan la soo gaartay. Xubnaha weerarka uu ku wajahan yahay ayaa degan xeeddaabka garoonka diyaaradaha, gaar ahaan agagaarka Hotel Jazeera oo ay inta badan degan yihiin mucaaradka ugu waaweyn Soomaaliya. Sida xogaha ay sheegayaan, sargaalka weerarkan loo xilsaaray ayaa lagu magacaabaa Farxaan Qaroole oo ah taliyaha ciidanka Haramcad oo ciidamada booliiska hoos taga balse si aada u tababaran kuna roon shiiska. Ciidankan ayaa horey waxay u weerareen hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo dhigkar ku riday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. Musharaxiinta madaxweynaha ayaa horey uga digay weerar uga yimaada dowladda federaalka, waxaana ay dowladda 19 February weerar ku qaaday Hotel Maa'ida oo ay deganaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo sidoo kale dibadbax ay dhigayeen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta oo uu horkacaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, islamarkaana ay rasaas hubiyeen ciidamada Haramcad, taas oo keentay in ay kala cararaan. guud ahaan wararkii warsida waa naga intaa. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay, saar subscribe, la wadaag asxaabtaada oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo macluumaadkan halkan soo gelino. Nabadgelyo.